waa qaybtii labaad ee barnaamijkeennii ku saabsanaa aqoon-darrada bulsho. Sababtoo ah aqoon-darradu waa agab awood leh oo aan la jabin ilaa la lafaguro nidaamyada iyo dhuumaha aqoon-darrada baahiya, ra'yiga guudna luminaya oo la dabagalo istiraatiijiyadaha marin habaabinta. Waxaa kale oo lagu loodin karaa shakigelinta kalsoonida arrimaha ay sheegayaan jihooyin cayiman, ukuurgalka wararkooga iyo ilaalinta warbaahinta u bareeraysa luminta wacyiga dadka. Sida cad, fahanka iyo daraasaynta lagu sameeyey aqoon-darrada lafteeda iyo sida loogu kuurgalay laguma bixinin aqoonta lafteeda qarniyo badan. Si gaar ahna wixii ka dambeeyey qarnigii 18aad, jahliga waxa lagu sameeyey daraasaadyo xeel dheer oo lagu lafagurayay. Waxay soo bandhigeen in si qoto dheer looga fikiro waxa aqoon-darrada lagu tilmaami karo, iyo in si gaar ah loo tixgeliyo kala duwanaanshaha goobaha iyo xilliyada. Sidaas darteed, waa inaynu marka hore ka baaraan degno ama aynu ku baraarugno ama aynu u ogaal yeelanno ka hor inta aynaan dhaqan ama xilli bulsha ay noolayd jahli ku tilmaamin. Casrigan aynu joogno, dadku waxay waxbarashada ka dhigteen jidka ay ku hagaajiyaan noloshooda iyo inay meeqaam sare oo bulshada dhexdeeda ah ku helaan. Sidaasoo ay tahayna waxay iska indhatiraan asalka aqoonta iyo shaqadeeda, oo dadkaasi weli waxa ay ku raadaysan yihiin dhinacyada kala duwan ee nolosha. Dadkaasi waxay u dabran yihiin dhaqamo iyo fikrado khaldan oo soo jireen ah. Aqoontu waa seeska horumarka bulshada, qofkana waxa ay ku kaalmaysaa in uu yeesho qayim wax badan oo wanaagsan uu ku qabsan karo, horumar dhaqaale iyo bulshana uu ku samayn karo. Aqoontu waxay qofka u xoraysaa maankiisa, waxaana ay qofka siisaa awood uu si madax bannaan ugu fikiri karo uguna dhaqmi karo. Qofku waxa uu kala sooci karaa xaqiiqada iyo mala-awaalka aan sal iyo raadka lahayn. Intaaba lidkeed, aqoon-darradu waxay qofka ka tirtaa awoodda go'aan qaadasho iyo inuu si madax bannaan qofku u dhaqmo, oo horumarkiisa iyo horow socodkiisa ayay caqabad ku noqotaa. Waxaa jira waxyaalo badan oo tusaale u ah aqoon-darrada oo iminka bulshooyinka ku dhex faafta. Waxaa ka mid ah isla dhexmaridda wararka beenta ah iyo waxa aan sal iyo raadka lahayn ee bulshooyinku ay qaadaadhigaan. Ma cusba in warar been ah la faafiyo, oo waa wax qarniyo soo jiray in la faafiyo wararkaasi, waxayna kor u qaadaa isfahanwaaga bulsho iyo kala daadsanaanteeda. Waxayna sababtaa in la qaado tallaabooyin qaldan. War been ah oo la faafiyey oo qof rumaystay ayaa sababi kara inuu qofkaasi qaado tallaabooyin aan habboonayn oo natiijooyin qaldan kaga soo noqdaan. Wararka hadda taagan ee la soo qaadan karo waxaa ka mid ah sida isbeddelka cimilada oo kale. Waxyaabaha aqoonta wax ka beddelay waxaa ka mid ah dhaqdhaqaaqa dumarnimada. Muddooyinkii hore, raggu waxay iska dhagamarin jireen aqoonta dumarka oo kalsooni kumay qabin aqoon dumar, oo wixii aan raggu aqoon may aqoonsanayn ama aqoon umay haysan. Waddamada Yurubta bilowgii casriga cusub waxaa jiray dhaqdhaqaaqyo dhiirigeliya in aan dumarka waxyaabaha qaarkood la berin. Aqoon-yahanada antropologiga laftoodu muhiimad may siinin kaalintii ay dumarku ku lahaayeen dhaqamo iyo xadaarado badan oo dunida soo jiray. Kadib, dumar ku biiray majaalka antropologiga ayaa galdaloolooyinkiina buuxiyey. Maria Reiter oo ahayd aqoon-yahanada antropologiga ah ayaa ku dooday in raggu iska dhaga tiray kaalintii ay dumarku ku lahaayeen samaysanka sooyaalka, iyaga oo ahaa boqorado, aqoon-yahano iyo qaybaha kale ee kala duwan ee bulshadu ay leedahay. Buugga Peter Burke waxa uu ku soo beegmay xilli loo yaqaanay xilligii xogta, oo aanay aqoontu ku koobnayn uun tabaqada sare ee bulshada oo keliya ee ay cid waliba aqoonta heli karto. Arrinkan laftiisu waa wax u baahan u fiirsasho iyo dhabagal. Waxa aqoon ama xigmad la odhan karaa waa nisbi ku xidhan xilliga iyo goobta la joogo markaa. Waa xilli ay aad u faaftay aqoonta khaldan ee la baahiyaa, aaminaadaha aan salka lahayn iyo wararka beenta ah iyo xaqiiqa iska indhatirka qofku doorto. Aqoon-darradu mararka qaar waa ikhtiyaar qofku doorto, oo ah teed ama derbi uu iskaga xijaabo inuu qofku ogaado waxa saxda ah, isaga oo qofku iska dhaadhicinaya in aanu waxaasi waafaqsanayn aaminaadihiisa iyo ideolojiyadiisa uu ku qanacsan yahay. Sidaas darteed, jahligu markan waa teed qofku iskaga qabto inuu wax cusub ogaado. Wabillahi tawfiiq.